waa aabbe Soomaaliyeed oo inta gabadhiisii oo 16 jir ah laga qaatay kadibna sun lagu dilay gabadhiisii isagoo cimrada ku maqan. Aabbahan Soomaaliyeed oo sheegay in gabadhiisu ay xidhay markii hore oo xabsiga ay u taxaabtay waddankaasi Holland isagoo ka hor inta aan iyada sunta lagu dilin oo aan la qaadan. waxaan idin haynaa aabbahan oo ka sheekeynaya qaabkii sunta loogu dilay gabadhiisa yar ee 16 jirka iyo sida ay cunugtiisu ay ku xidhay oo ay u soo dacweysay isagoo ku sugan waddankaasi Holland ka hor intaan u bixin xaramka Ilaahay oo aan u cimro tegin. iyo wali waxa aabbahan uu ka hadlay cidda ka dambeysay dilka gabadhiisa yar ee 16 jirka. qodobadaas oo dhan ayaan barnaamijkeena maanta aynu ku qaadaynaa. ha yeeshee daawado intaynan barnaamijka u guda galin haddaad channelka ku cusub tahayna subscribe saar, daawado muuqaalkana la garee, lagtu waa noo dhiirigelin. ku soo dhawaada barnaamijka. waa aabbe Soomaaliyeed oo ku nool waddankaasi Holland. waxa uu dhalay carruur 9 ah, 2 gabdhood oo waaweyn oo mid tahay 16 jir iyo gabadh iyada 2 sano ka yar ayaa ugu weynaa carruurtiisa, inta kalena waa ay ka yaryaraayeen. aabbahani ayaa waxaa dacweysay gabadhiisa 16 jirka. gabadhiisa ayaa u darabtay ciidamada booliiska iyadoo ku eedeysay inuu jir dilo. aabbahan ayaa muddo 2 habeen iyo 2 maalmood ah waxa uu ku jira xabsi ku yaala waddankaasi Holland kadib markii ciidamada booliisku ay sheegeen gabadhiisa yar uu jir u geystay ayna soo dacweysay oo ay doonayaan inay baaraan. aabbahan ayaa markii muddo 2 habeen iyo 2 maalmood ku xidhnaa saldhig ku yaala waddankaasi Holland isagoo weliba u socda xaramka Ilaahay oo doonaya inuu soo cumraysto, balse baaritaan aanay ku sameyn ciidamada booliisku ay markii dambe ay iska soo daayeen. aabbahan ayaa maalinkii la soo daayay maalin ku xigtay waxa uu ka soo tagay oo ka soo kicitimay waddankaasi Holland oo qoyskiisu iyo carruurtiisu ay deganaayeen. waxa uu aaday waddanka Sacuudiga si uu halkaasi ugu soo cumraysto. aabbahan oo cumradaasi jooga muddo isbuuca ayaa habeenkii 28 bisha Ramadaan ee barakaysan waxaa soo wacday xaaskiisii oo u sheegtay gabadhiisii yareed ee 16 jirka ahayd la dilay oo ay dhimatay oo ay sun cabtay sida ay sheegeen dadkii iyaga haystay. hooyada dhashay gabadha ayaa waxay tidhi maalinkii aad baxday maalin ku xigtay ayaa laga qaatay oo waxa qaatay hay'adaha carruurta qaatay ee qaaradda Yurub. 2 gabdhood ayay ka haysteen kadibna 5tii kale carruurta ahaa halkii ayay kaga tageen. gabadhani ayaa waxa uu sheegay aabbahani inay dhimatay, balse gabadhii iyada ka yaray ayaa sheegtay in gabadha cabitaan la siiyey oo ay siiyeen kooxihii markaasi nahayay guriga lagu hayay. haddaba aabbahani oo ka sheekeynaya qisada dilka gabadhiisa ee sunta lagu dilay iyo qaabkii ay ku xidhay ku dacweysay gabadhiisu bilow ilaa dhammaad waa kan ee daawasho wacan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وحسن محمود حاج موسى waxaan deganahay magaalada Danhaag. waxay ku dhacday masuubo ama dhibaato weyn ilaa weyne. waxaa la soo sheegay in gabadheedii ay dhimatay Casha Xasan Maxamed Xaaj Muuse. gabadhaasna bisha 22keedii ayaa aniga laygu xidhay saldhigga Delft ee magaalada u dhow Danhaag iyadoo laygu leeyahay waxaad u hanjabtay ama doonaysay balangaraysay inaad disho gabadhaada Casha. 2 casho ayaan ku xidhnaa saldhigga. waxay yiraahdeen 3 casho ayaan ku haynaynaa waanan ku baaraynaa sababtoo ah gabadhaada kale ee Mawaahib ayaa kaasoo bixisay dacwad ah inaad balangareynayso inaad gabadhaada Casha disho. kabacdi oo kaybaan 2 habeen baan ku hoyday meesha, wax baaritaanna iguma dhicin, cid ay waraysatayna ma jiro, waxba la igama qorin. markii dambena waa la iska kaasii daayay. waxaa la yiri waxa tahay fasax baaritaankii waan dhamaynay, waxba ma geysan
anigu cimrada ayaan u socday 22kii ayaan doonayay inaan baxo 23kii baa laysoo daayay cimrada ayaan qabtay 23kii wadankan waa ka baxay anigoo xaramka jooga oo cimraysanaya iyo 28kii maalintii khamiista ahayd habeennimadkeedii kow iyo habeennimo wadanka Sacuudiga iyo barkii la soo wacay waxaa la ii sheegay gabadhaydii inay dhimatay ilaa iyo haddana wax wara kama hayo isla markii 30kii waan soo noqday wadanku soo noqday Holland markii aan weydiiyey sababta ay u kaxeeyeen caruurtayda looga kaxeeyey magaaladii ay deganaayeen hooyadood looga kaxeeyey cid waxay sheegtay malahan waxa la geeyey meel ay yiraahdeen waa safe house ama wadankayga loo yaqaano file house qolada file house ay ka haysay file Blackman geena bay yiraahdeen ama khiyaan address secret address halkaas ay ku dhimatay Aasha waxa la socotay walaasheeda yar Muwaahib oo ay markii hore yiraahdeen waa gabadhii aan khiftiga ka dhibtay anigu 7 caruur ayaa ii joogtay guriga 5 guriga ayay kaga tageen waliba tawu yar ay tahay sanad labada waaweyn 16 iyo 14 ana way ka haysteen 5tii kalena guriga ay kaga tageen hadda waxay yiraahdeen Aasha way isdishay lama baarayo house artistkii ama house doctorkii in jirkeeda la qalo oo la eego in dawo iyo wax la siiyeen way diideen Muwaahib waxa ay sheegtay Aasha inaan isdilin 30 daqiiqo ka hor dhimashadeediina in dawo la siiyey dawadaas oo ay siisay naag la yiraahdo Vamco oo meesha ka shaqeysa 5 casho ay meesha ku jireen anaa Sacuudiga ku maqnaacay waliba Vamco dhowr goor isdileen waxa kale oo ay sheegtay inaan inantaydu u isdilin waxay ku leeyihiin waxa isku dishay capsule wax la yiraahdo ama bahalka dharka la sudho waxa weeyaan gidaarka ku dhagsan inantaydu dharkeedu wuxuu ahaa 1.70 16 sano ayay jirtay capsule markaan meeshii tagay guriga ay isku dishay waxa taalay meesha capsule hoostiisa sariir suunkii lama qaadin meesha ayuu yaalaa dharkeedii lama qaadin markii dambena waxay yiraahdeen ordo asta lama baarayo way isdishay inantii kale kaxeeyeen Muwaahibna hadda gurigay joogtaa wax contact la soo sameeyay malahan dhibaatadaas ayaa igu dhacday waxaan u baahanahay jaaliyada Soomaaliyeed iyo looyarada Soomaaliyeed iyo kuwa muslimka ah in la garab istaago inaan helo xuquuqdii iyo xaqii aaboonimo iyo xuquuqii ay lahayd inantayda dhimatay iyo inanta kale ee hadda guriga ii joogto ay ka haysteen waxaan la yaabanahay sababta ay u kaxeeyeen iyo sababta waxa weeyaan ay hadda Muwaahib guriga u joogto ay igu soo celiyeen dhimashada inantaydii aad iyo aad baan uga xumahay inkastoo Ilaahay ilaha ka haystay Ilaahay baa iga jeclaaday laakiin waxaan rabaa inaan cadaalad u helo waayo waxa aan ku kalsoonahay hadalka inantayda Muwaahib ee ah walaashay ismayna dilin kuma kalsooni hadalka ay sheegayaan sifaa xitaa la iga qaatay ama ilmahayga loo kaxeeyay waa sifo sharci darro ah anigoo ogolaanshiyo kama siinin hooyadood ogolaanshiyo ma ayna siinin maxkamadda ogolaanshiyo ma ayna siinin boolisku ma uu kaxaynin iyagu waxa kaxeeyay qolada socialka ilaa hadda socialka xitaa wax tacsiya kama hayno information booliska kama hayno marka dhibkaas ay soo gaaray waxaan u baahanahay inaan Aasha cadaalad helo aniguna cadaalad helo sababtoo ah 16 sano ayay agtayda ammaan ku ahaayeen iyaguna 5 casho ayay ku dileen marka waxaan u baahanahay Soomaali meel kasta joogto in ilmahayga cadaaladiisa la igala shaqeeyo lawyer cidii caawin karta lambarkayga waxa weeyaan 30031 0031 6844567 waxaan u baahanahay in cadaaladaan u helo ilmahayga waxaan u baahanahay in Soomaaliya ay garab istaagto waxaan u baahanahay at least inaan helo cadaymo ugu filan oo cadaynaya in ilmahaygu isdishay waxaan u baahanahay inaan helo sababta sidaan la wada dhaqmay aniga la xiray aniga wax dambiye geysanin haddana la seekay soo daayay haddana carruurtaydii loo kaxaystay haddana ilmahaygii oo dhintay oo la leeyahay ilmihii la iga kaxeeyay haddana uu imika guriga ila joogo ilaa iyo hadda waxaa ka soo wareegtay 4 casho wax cadaynana لما كينين كوي جك حين يمينين وحتحسين لما كينين الماء حتى لما يجين هذا الكي ولا شيء ده دواء للسيا لما بارن
house doctorkii xitaa codsigii ahaa in la qalo la baaro bal beerkeeda iyo dhiiggeedana waa la diiday ma garan karayo ilmaha waxay saan igu dhacday laakiin ilaahay baa i qadaray waxaan u baahanahay Soomaali inta walaalnimada iyo muslimnimada igu garab istaagaysa inay la soo xiriiraan warkaygana ay gaarsiiyaan cidii wax ay qaban kartaa